sida iyo reer abkay sheekhaala meesha fadhiya waa qoladii la isku xamanayo iswada dhashay oo walaalaha eed oo kacab isugu dhex jirta insha allahu tacaala annaga waxaan meeshaan fadhiyay reer abkiin sheekhaal waaye hamiyaana soo gali hamigaasoo ekeetigii Mandera East ayaa hawa naga soo gashay MB aan rabnaa hadda maaha waqti aan la kulmayn oo walaalaheen aan wax warsanayn hadda kaliya maaha wax badan aan wax warsanay magan alla jisakalla tol jira walaal jira wixii aan ka warsanin waa aan ka heli jirnay wiliga anagana waxba kama waayin boqolkiiba boqol taasna way ku mahadsan yihiin wiilkaas Cabdullaahi Daahir nin aan garanayna male hadda inta dhalinyarada hada Daahir aabiis way maqlaan Sheekh Axmed wada kasi waa Sheekh Axmedna waa la yaqaanaa Daahirna waa la yaqaanaa reerka si godob ah ee wiliba iyaga qaraabo ay u sii ahaan anaga aan u sii ahaan wiilkaas ayaan wadnaa oo Cabdullaahi Daahir oo yaan soo saarnay haddii aan nahay beeshii sheekhaaleed koona tareebna waan la soo dhaxmarnay beel ahaan beeshii sidaan haddana u keennay waxaan idinka codsanaynaa inaad wiilkaas aad nala qaadaan nin kursiga baahi u haysina ma ahan laakiin waan soo xulnay oo nin wax qabad ah Soomaali afarta qabiile ee Mandera East degan nin intifaaci kara inuu yahay ayaan u soo xulnay sidaa darteed inaad nala qaadaan ninkan kursiga aad nala soo gelisaan Cabdullaahi Daahir Sheekh Axmed ayaan inka codsanaynaa waxaan idinku doonaynaa oo maanta idinka fadhinaa wiilkiinii oo damac soo galay reerkii aad ehelka ahaydeen intaasba waxaanu idinka fadhinaa inaad na garab istaagtaan taladiinaan u baahannahay kuuradiinaan u baahannahay waxaan u baahannahay ducadiinna wiilka Cabdullaahi Sheekh Daahir baan wadnaa waa u qalmaa waa in ahludiin wax soo bartay marka idinkana qaraabatiin Sheekh Axmed ayaa awow ah waa in la yaqaan caan ah marka waxaan rabnaa inaad nala qaadaan maalina waa isla dhalatay meel walbaba qaraaba la yahay marka gooshana maanta ma horeysa gogol horna waan soo galnay codsiga hadda waxaan u qaatay waa soo soconaaye baashi wili xooga baa ka reemana koow ma joogtee raabo waa naga wala haraysaas naga war hayo baan u qaatay marka raabiye ku soo dhawaado raabo soo dhaweeyo annagu haddii nahay beesha sida marka hore waa idin duceynaynaa khayr hadday tahay ilaahay inuu idin fududeeyo oo si nabad oo dhiblaan gacantiin ku soo geliyo insha Allah haddii dadka halka iskugu yimid hadda dad in idin tashtay reebel baan maxaan yeelaynaa dhahay oo tashtay ma aha insha Allah kulay waqtigiina waa dhaman yahay ilaahay haddii wuxuu gacanta ku jirana ma waynaysa insha Allah haddii waqtigaas nolol iyo geeri intaba waa la marayaa waa sanad iyo inta ka sii badan marka soo dhawaada gacmo warran ku soo dhawaada khayr bay noqonaysaa insha Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa in soo dhaweynaynaa waqtigana waa dhiman yahay saad u shaqaysataan bayna ku xiranta badan iyo xurguf badan bay u baahan tahay dadaal badan bay u baahan tahay waa siduu ninkaa sheegaya weeye dadaalkiina wax walba ku xiran yihiin orodkiina ay ku xiran yihiin inaad dadaashaan oo saadaad wax u dalbanaysaan wax u dalbataan oo dadka aad raadisaan lagama maarmaan waaye ha isdheganina waa runtiisu qol walba markay wax rabto aabbiyo hooya yeelin walaalo kanay tahay futida ka hor lisma arkayo wax is arkayo wax is rabin male marka khiyaaray hadalka waxaan ku soo gabagabeynayaa inaad dadaashaan oo si fiican u dadaashaan cid gaar ah oo inay wax weydiisatay u xiran tahay ma jirto kulli anoo ku hadlay afka beeshsade intii odayaasha dheheen un baan la qabnaa wuxuu calaf idin diidinna reesada inay idin diidayna waa filayaa laakiin soo dhawaada codsigiinina kulli tolka reesada inay qaadaan oo aqbalaanna waa rajaynayaa santiin waadna ku fiican tihiin waana intii hore dadka iga horreeyay ay sheegeen baan inta badan la qabaa soo dhawaada tolow soo dhawaada wuxuu ilaahay idin nasiibo waad helaysaan dadaalka intiisa badanna adinku idinku xiran yahay gacmo furan iyo gogol fidsan iyo qalbi furan ku soo dhawaaw tolkaaga waa kuwaan waa joogaan codkooda waad maqlaysaa marka aad iyo aadaan kuu soo dhawaynaynaa gacmo furan ku soo dhawaaw salaam runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadsan tihiin inaad xafladdan noo soo ajiibteen iyadoon aad uga cudur daaranayno muddo gaaban in notice lidin soo sii ama lidin soo sheegay dad walaal oo ku jecel unbaa intaas laga helaa marka horta aad iyo aad waqtigiina ugu mahadsantihiin oo qaaliga ah
oo laga yaaba dadka qaar ama inay nasan lahaayeen ama howlo kala qabsan lahaayeen aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa dadka meeshaan hadda ka hadlaya dhammaan si fiican ay uga hadleen in mataqaanaa markii loo baahdo aan mar adeerkay jaamac siduu dhahay cusban noqono iyo mar dhabanada lanaga dhunkado oo markii kuura ay soo dhawaato marka kalena telefoonada lanaga bloggareeyo oo mataqaanaa baabuurtan ay bus nagu agmarto marka xaaladaas iyo tiihaas aan ku jirno sidii looga bixi lahaa ayaa meeshaan noo taalla reerkan qaraabadii runtii aad u tashateen oo waxaan u malaynay sanadkan isbeddel weyn idinka muuqda annagana inaan idinku dayanaan rabnaa idinkana dad walaalaan nahay oo dadka Koona Tribe waalidaasaad sheegaysa bal inaad isku keen celcelisaan oo dad isku dana noqono aaday muhiim u ahaan lahayd oo mataqaanaa oo korka naga fiirsanin waana idinku tashanaynaa familkan aniga waa familkaygii yaraantaydii mandheera markaan yareereen ganacsiyada aan halkaan ku lahayn aabbahay dadkii shirkadda ahaayeen oo dhan reerkan ay ahaayeen uu kow ka yahay xiirey hira jab ari cali hoolaal dad aad u fara badan mataqaanaa dad aad isugu xiran aan ahayn cabdulaahi gardhuub aniga markii aan yaraa qabiil aad uma aqoonin oo dadkaas kulli adeerun bay ahaayeen dad waalid oo aabba la dhashon bay ahaayeen marka aniga horta nin dadkiisa soo hor istaagaan ahay oo walaalihiis iyo waalidiintiisa helaan ahay insha allahu meeshaan waxaan u imaadayna waxaa waay inaan idiin soo bandhigo damacaa siyaasado igu jira oo mataqaanaa xildhibaan kursigaas oo Mandheera East MP na u soo istaaga insha allahu tacaala waana siyaasaddan hadday hor leedahay waxaan idinka rajaynayaa inaan wada tashi aan sii samayn doono oo kulamo kale aan qabsan doono dadkii dhabarkayga dharbaaxay nin ka mid oo aad muhiim u ah reerkaan u ahaa oo yidhi marnaba gadaal ha u laabanin marka aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa mar kale insha allahu tacaala waana wada kulmi doonaa eegana warqaba insha allahu tacaala aad iyo aadna waad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu